hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcaha berri yeelan doona shir madaxeed weyn kaas oo ajandihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga Ukraine ee ah in ay ka mid noqoto ururkan kaas oo la aaminsan yahay in ay muddo dheer haminaysa helitaanka xubinnimada ururkan waxayna u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankan uu ku soo beegmayo xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhaxaysa Yurub iyo maamulka madaxweyne Putin ee Moscow taas oo la aaminsan yahay inay ugu wacan tahay in colaadda Ukraine ay wali halkeeda ka sii socoto saacado ka hor shirka midowga Yurub Faransiiska oo hadda haya guddoonka golaha midowga Yurub ayaa bixiyay qiimeyn kalsooni ay ka muuqato taasi oo ku saabsan codsiga musharaxnimada Kiev wasiirka Yurub ee Faransiiska ayaa sheegay in guud ahaan la isku raacsan yahay taageerada codsiga Ukraine kadib wada hadal dhex maray wakiilada wadamada midowga Yurub waxay ku xiran tahay in hogaamiyaasha midowga Yurub ay si rasmi ah ugu codeeyaan musharaxnimada Ukraine Khamiista tan maanta ah taas oo ay barbar socoto codsiga Moldova iyo Georgia ayuu sii raaciyay wasiirka Faransiiska u qaabilsan midowga Yurub maamulka Kiev ayaa la aaminsan yahay inay dadaal iyo juhdi dheeraad ku bixisay sidii ay uga mid noqon lahayd ururkan midowga Yurub kaasi oo ay ku jiraan wadamo gaaraya tiradooda ilaa iyo 27 wadan sida ugu dhaqsiyaha badanna waxay u muuqataa in damaceeda iyo dadaalkeeda ay soo gabagabi doonto waqti dhow marka loo fiiriyo heerka uu joogo taageerada dalalka kan maanta iyo berri fadhiga gaarka ah oo qadiyadda qaranka Ukraine ka wada hadli doona iyadoo qaar ka mid ah wadamada midowga Yurub sida Portugal iyo Denmark ay mar sii horeysay muujiyeen inay taageeraan qadiyaddan laakiin toddobaadkii hore madaxa midowga Yurub ayaa iyana muujisay taageero weyn oo la mid ah midda ay hore u sii muujiyeen wadamada Denmark iyo sidoo kale Portugiiska dadka Ukraine waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan aragtida Yurub ayay tiri haweeneyda hogaamisa midowga kan laakiin waxay u muuqataa inaanay suurtagal ahayn in hogaamiyaasha midowga Yurub ay ku heshiiyaan baaqa Ukraine ah in si degdeg ah loo hirgeliyo codsigeeda waxaana ku biirista midowga Yurub qaadan kartaa sanado ama 10 sano sida xogta hadda soo baxaysa ay sheegayso laakiin Kiev wax badan ayay uga dhigan tahay waqti kasta ay ku qaadato in mar ay aragto iyada oo ka mid ah wadamada liiskoodu ay ku jiraan ururka midowga Yurub baadidoonka maamulka Kiev ee ah inay ku biiraan ururka kan iyo sidoo kale isbahaysiga difaaca dunida ugu weyn ee NATO waxa uu banaanka yimid kadib qalqal amni oo gobolka soo wajahay iyo go'aanka duulaan weerar ee ay Moscow qalinka ku dugtay 24 Febraayo ee 2022 taas waxay saacidaysay codsiga iyo calaacalka wada socda ee Kiev waxaana taasi sii taageeray cabsida caalamka waana caalwa kale oo xaaladda sii murjin karaya sii socoshada duulaanka Moscow ee Kiev wax walba ayaa isbedeli karaya marka loo fiiriyo aragtidii guyaalo badan ee dhexdhexaadnimada ee gobolka ka jirtay oo ugu dambeyn ku qasabtay wadamada Finland iyo Sweden inay dabcan ku biiraan ururka kan Moscowse waxay dareemaysaa culays waa say taqaan jawaabta culayskaas la isaga dejin doono